waxaana wanaagsan asxaabta dhaqaaliga marka la barnaamijyada excel ka caawa waxaan idin tusayaa functionka laga VLOOKUP-kaas functionkaas waxaa la baadhay marka data sidan vertical u taalo oo fara badan marka inaad baadhid aad u baahan tahay yaa la isticmaalay marka tusaale intan way yar yihiin waa record aad u yar markaas intanu 1 milyan ah iyaad u baahan tahay marka tusaale mouse ama house iyaad u baahan tahay qiimahoogan inaad ogaatid ama bas ID-googan inaad ogaatid markaas waxaad leedahay maxaa la yidhaahdaa qaabkii aad u baari lahayd yaan halkan idinku tusaya VLOOKUP ayaa la yidhahdaa ama vertical lookup ayaa la yidhahdaa waxyaabahan sidaa u yaala wuxuu noqon karaa datan 1 milyan iyo wax ka badan buu noqon karayaa san sidoo kale markaas waxaad u baahan tahay inaad magacan marka hore aad garanaysid qaabku kuugu qoran yahay haddaad magacan garanaysid si sahlan ayaad u shaqaynaysaa marka qaabkii aad u shaqayn lahayd yaan halkan idinku tusaya haddii la yidhahdo la socod wanaagsan equal to ayaad leedihiin VLOOKUP ayaad leedihiin halkan aad wax ku qoranayseen waxaad raadinaysaan aad ku qoranaysaan aad click iska leedihiin kooma ayaa leedihiin halka tableka inaa wax aad baadhaysid uu ku jiro ayaad sidaas u wada dooranaysaan kooma ayaa leedihiin waxaad tusaale u baahantihiin inaad pricekan ogaataan mobilekan pricekiisan inaad ogaataan baad u baahantihiin laakiin meel aydan idinku arkaynin idinkaga qarsoon yahay qaabkii aad si sahlan aad ugu baadhi lahayd inaan halkan idinku tusaya markaas priceku wuxuu yaalaa 1 2 3 kolomka saddexaad iyuu yaalaa bay ka dhiganta 1 2 3 ayuu yaalaa markaas 3 ayaan leenahay kooma ayaan leenahay 0 baan leenahay amaba se waxaan odhan karaynaa exact match ama false halka ay ku qoranta exact match ku qorantaan double click leenahay enter ayaan leenahay na buu noo soo saaray sababtoo ah halkan wax ku baadhaynay baa noo bannaan bay ka dhigan tahay markaas uu noogu soo saara halkan natiijada waxaan u baahannahay ayaan halkan soo dhiganaynaa ayaan ku qoranaynaa tvs ayaan imika tusaale iskaga qoranaa marka tv-ga qiimaheega inuu noo sheegaan u baahana tv-ga qiimihiisu wuxuu taagan yahay ka dhigan tahay waa 456 iyo qiimihiisu ay ka dhigan tahay halkan haddaad imataan tv-ga qiimihiisa aad eegtaan isla qiimahan ayaad helaysaan bay ka dhigan tahay haddaad u baahantihiin dollar baad iyadan u bedelaysaan si ay isku mid ay u noqdaan currency baad leedihiin okay baad iska leedihiin kadib decimalkaad ka saaraysaan sidan aad odhanaysaan tv markaad tidhahdo qiimihii buu nii soo saaray markaas waad iska bedelaysaan marka tusaale waxaad ka dhigi karaysaan oo kale tusaale ilbaabo oo kale ayaad odhanaysaan ilbaabka qiimihiisa ilbaabka waan qalday ka dhigan tahay sababtoo saas darteed iyuu u leeyahay na halkan lt maadaama la'di ka tegay iyuu na u leeyahay saasuu noogu soo saaray markaas haddaad iminka ilbaabada qiimahooga aan tagno halkan tusaale ilbaab qiimihiisa haddaan tagno isla qiimahan halkan uu noo soo saaray systemka automatica noogu shaqaynaya iyuu imanayaba ka dhigan tahay cusbo oo kale haddaad ku qortid cusbo ayaad mar kaliyaad ku qoranaysaa kadib haddeed automatic isagaa kuugu shaqaynaya cusbo haddaad ku qortid qiimahan ayaad ka helaysaan cusbada horteeda marka tusaale cusbo qiimihiga waa kan sidoo kale ID-googa kale haddaad baadhaysiin waa isla mid weeyaan marka tusaale magacaantan iyo ID-googa ii baadh lagu yidhi halkii marka hore tuuga ahaa triga aan ka dhignay maadaamay laba ku jiraan itemku 1 2 itemka labaad oo ID-gu yahay ayaan 2 ka dhiganaynaa halkaas ayaan 2 gelinaynaa enter ayaan leenahay kadib waxaan leenahay tusaale mobile ID-giisa ii sheeg baan leenahay kan number caadi aan ka dhigaynaa kii hadeer waxaan lacagta uga dhiganay maadaama price aan ka hadlaynay kan number caadi ah general ayaan ka dhigaynaa number caadi uu noo shaqeeya nooga dhigay laptop haddaan nidhaahno iminka laptop haddaan ku qoro ID-ga laptopka ayuu noo soo saaray laptop waa kan laptopka ID-giisa 499 saasaa loo shaqeeya inaa fahamteen baan u malaynaa asxaabteeda qaaliga aad iyo aad baan idin salaamaya goob walba goor walba aad joogtaan khariyan idin rajeelse barnaamijka aad ugula socotaan qaybihiisa kale fadlan soo follow gareey asxaabteedna la wadaaga si ay barnaamijkan uga faa'iidaystaan maadaama si taxan aan u wadi doono ma aada laga bilaabo aad iyo aad baad mahadsantihiin